بعد السلام waxaan rabnaa inaan ka warbixino dhibaato magaaladan ka dhacday maanta iyo xalay xilinkii dambe magaaladan waxa weerar ku soo qaaday niman qaswadayaal ah oo mucaarad dawladda iyo deegaankaba ku ah oo muddada dambe halkii sanad dambe wadankan dhibaato ku hayay oo saldhigoodu ahaa bohol ayaa xalay magaaladan 8 saac markay ahayd weerar ku soo qaaday meeshaas runtii dagaal xun ayaa ku dhaxmaray ciidamada qalabka sida oo dawladda Soomaaliyeed iyo nimankii qaswadayaalka magaalada soo weeraray dagaal muddo dhan socday ayaa meesha ka socday ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa uu naga guuleeyay waa ay baxeen wax dhintay iyo wax dhaawacmay iyo wax dhibaataysan oo lugayna ayagoo ah hadda magaalada ka baxeen waxaan marka hore ilaahay uga mahad celinayaa guushaas waxaan ka tacsiyeynaa dhibaatadii meeshaas ka dhacday oo shacabkii reer Dhuusmareebeed ku dhacday oo dhimashada iyo dhaawaca iyo qaxa iyo hantida baaba'day iyo dhibaatada lahayd waxaan sidoo kale runtii ka xunnahay dhibkaas dhacay haddii ayaga ku dhacayna waan ka xunnahay waxaan ku faanna maahan haddii annaga nagu dhacayna waan ka xunnahay waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo ciidamadii qalabka siiyay oo Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan oo aan qolo ka harsan runtii aysan jirin oo runtii geesiyaalka ahaa oo u birdhigay dadkii rabay inay deegaanka iyo ummadda ay dhibaateeyaan ilaahayna uu guushii gacmahooda soo marsay waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadkii caasimadda deganaa oo qaxay oo ilaa xalay guurayay magaaladu inay nabad tahay ay magaalada ku soo laabtaan guryahooda ay yimaadaan hay'adaha samafalkana waxaan ugu baaqaynaa oo ugu yeeraynaa in maaragtay ay dadka soo celiyaan dadku tabar ay ku guuraan iyo mid ay maaragtay ku soo laabtaan midna ma aysan haysan laakiinse maaragtay waa lagu kalifay waxa ku dhacay runtii aad iyo aad uga xunnahay waxaan leenahay dadkana gurigii nabad ugu soo laabta hay'adaha samafalka iyo cid kasta ee muxsinaha oo xili kartana waxaan ka codsanaynaa dadka maaragtay in laga qayb qaato sidii magaalada ugu soo laaba lahaayeen mar labaad ciidamadan u mahad celinaa qasaarada dhacday oo dhimashada leh dhaawaca leh barakaca leh hantida burburtay leh guddigan u saaraynaa haddii ilaahay yiraahdo markaasaan ka warbixinaynaa aad iyo aad u mahadsantiin salaamu alaykum waxaan rabnaa inaan ka warbixino dhibaato magaaladan ka dhacday maanta iyo xalay xilinkii dambe magaaladan waxa weerar ku soo qaaday niman qaswadayaal ah oo mucaarad dawladda iyo deegaankaba ku ah oo muddada dambe halkii sanad dambe wadankan dhibaato ku hayay oo saldhigoodu ahaa bohol ayaa xalay magaaladan 8 saac markay ahayd weerar ku soo qaaday meeshaas runtii dagaal xun ayaa ku dhaxmaray ciidamada qalabka sida oo dawladda Soomaaliyeed iyo nimankii qaswadayaalka magaalada soo weeraray dagaal muddo dhan socday ayaa meesha ka socday ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa uu naga guuleeyay waa ay baxeen wax dhintay iyo wax dhaawacmay iyo wax dhibaataysan oo lugayna ayagoo ah hadda magaalada ka baxeen waxaan marka hore ilaahay uga mahad celinayaa guushaas waxaan ka tacsiyeynaa dhibaatadii meeshaas ka dhacday oo shacabkii reer Dhuusmareebeed ku dhacday oo dhimashada iyo dhaawaca iyo qaxa iyo hantida baaba'day iyo dhibaatada lahayd waxaan sidoo kale runtii ka xunnahay dhibkaas dhacay haddii ayaga ku dhacayna waan ka xunnahay waxaan ku faanna maahan haddii annaga nagu dhacayna waan ka xunnahay waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo ciidamadii qalabka siiyay oo Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan oo aan qolo ka harsan runtii aysan jirin oo runtii geesiyaalka ahaa oo u birdhigay dadkii rabay inay deegaanka iyo ummadda ay dhibaateeyaan ilaahayna uu guushii gacmahooda soo marsay waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadkii caasimadda deganaa oo qaxay oo ilaa xalay guurayay magaaladu inay nabad tahay ay magaalada ku soo laabtaan guryahooda ay yimaadaan hay'adaha samafalkana waxaan ugu baaqaynaa oo ugu yeeraynaa in maaragtay ay dadka soo celiyaan dadku tabar ay ku guuraan iyo mid ay maaragtay ku soo laabtaan midna ma aysan haysan laakiinse maaragtay waa lagu kalifay waxa ku dhacay runtii aad iyo aad uga xunnahay waxaan leenahay dadkana gurigii nabad ugu soo laabta hay'adaha samafalka iyo cid kasta ee muxsinaha oo xili kartana waxaan ka codsanaynaa dadka maaragtay in laga qayb qaato sidii magaalada ugu soo laaba lahaayeen mar labaad ciidamadan u mahad celinaa qasaarada dhacday oo dhimashada leh dhaawaca leh barakaca leh hantida burburtay leh guddigan u saaraynaa haddii ilaahay yiraahdo markaasaan ka warbixinaynaa aad iyo aad u mahadsantiin salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh